waxay idinka sheekeynayaan gabadh gaalo ah waa gabadh madow oo soo muslimta marka hore gaalo ahay ayaa gabadhaas waxa iga yaabiyey gabadha anaaba soo muslimiyey waxa iga yaabiyey wax marka la soo muslim yani ana u qabtay shahaadada waxa iga yaabiyey gabadhan siday ninkeeda ula dhaqanto nin baan u guuriyey kaloo madow African American waxaan deganay marka Maryland meelado oo Mareykanka ah ninki marka wuxuu igu yiraahdaa Saciid iimaan buu dhahaa gabadhu waa cajiib gabadhu ilaahay noo barakay dumarka African American waxa lagu yaqaan dumarka madmadow soo muslimay Mareykanka degan inay taf yihiin ay adag yihiin taagan yihiin ninka halka hadii goor ay ka jiraan oo laga aawdo bileysto ninkana gabadhiisa wuu amaanaya waana aad buu ugu faraxsan yahay inantii baan u yeeray ii waran baan ku waxay tiri caynka ninka loola dhaqmo ninka caynka loola dhaqmo waxaan ka bartay hooyaday haye waxay tiri hooyaday waa hooyada gaala ayaa aabaheedo gaala hooyaday bay tiri markuu aabahay yimaad intaanu imaanin bay annakana sii diyaarin jirtay way noo sii meeydi jirtay looshi may nasi mari jirtay way nasi qurxin jirtay cadar bay noo sii mari jirtay annakoo diyaara oo aad moodin inaan daa aroos tagayno xaflad aan tagayno qurux badan oo naloo sii meeyo naloo sii subka aabahay yimaada markuu jeliska uu alba maftaha ku dhufto ay tiraahdo shakora yaa waxay tiri marka aabahay hooyada halka tuwal baa u saaran aabahay kursi baa albaabkay u dhigtay bay tiri kursigii bay ku fadhiisisa kabahay ka bixisa mariyihii uu xidhnaa saray ka bixisa tuwaalkina way siisa waxta musqusha galo soo meeyo alaabtiisii bay tiri marka musqusha ayay u taala markuu ka soo baxo uu musqusha ka soo baxo cuntadii oo diyaara ayuu yimaada 2 saacadood ayuu asagu nasta ama uu raaxaysta maruu cunto cunayo maruu hooyo la sheekaysto 2 saacadood ka bacdi baana la siyaabay tiri idniga inaanu aabahay u soo degno markaasaanu soo degna saanu la ciyaara aanu dhudhunkana hadhowna saytaa ordada seexda aabihiin barto ka lahaya ixtiraamka marka ninka caynka loo ixtiraamo waxaan ka barta hooyaday ka bacdina waxaan akhriyay sunnadii nabiga sallallahu alayhi wa sallam caynka ragga loola dhaqmo ayaan bartay waxa jira rag fara badan oo halkan aan maanta hadlaynin oo sida fiidmeerta guriga ka warwareega oo meelaha ma dhamo maqaxibu ka soo sheekaynaya halkan buu kalba halka mar buu hebel leeyo tagaya hebel baan meel geeyay buu oranay inta wuxuu sugaya inta tii ka seexanayso wuxuu ilaahayo tii bas si on dheh wuxuu sugaya inta tii guriga ma sha Allah ka seexanayso waayo wuxuu ogyahay markuu jidh guriga soo galo in lagu bilaabayo maxaad qabatay xagaad tagtay maxaad samaysay dagaal buu marka u diyaar yahay dagaal wallahi mid wuxuu igu yiri qaylan guriga marka albaabka sida u furo waxaad moodaa buu inay aniga isugayso markan albaabka sida u furo waa ay soo fatahada ayadoo qaylansan ka seexda buu yiri ayadoo qaylansan waa soo toosa saanaha buu tiraahdo